hadday taasi dhici weydo wixii ka yimaada mas'uuliyaddeeda xukuumadda iyo maxkamadda sare ee militariga qaadi doona madaxweyne ninka ilaahay dilayay dilkiisa iyo gobolka awdal kala dooro adigu midkii ku roqaado haddii aanu samareenahay waanu aasanay waxaan suganaa ninka dilka ah qisaastiisii baan suganaa hadday dhici weydo balaayada meesha ka timaada xumaanta meesha ka timaada waxa mas'uul ka noqon doona Muuse Biixi allaha u naxariista waxaa halkani oo xabaalaha galbeedka magaalada Boorama maanta aas qaran loogu sameeyay Khadar Xabeeb oo ahaa taliyihii dhawaan lagu dilay magaalada Lawicado waxaana aaska loo sameeyay allaha u naxariista marxuumkani ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenno agaasimayaal xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boorama kuwaasi oo alla nooga bariyay in jannatul firdaws uu ka waraabiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoonka Khadar Xabeeb Caynaanshe ee ay dishay gacan ka gardarani ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxariistii jannaha ka waraabiyo eheladiisii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala sabir iyo iimaan ha ka siiyo marka hore waxaan tacsidaa u diraynaa dhammaan qoyska reer Xabeeb Caynaanshe iyo reer Caynaanshe iyo dhammaan qabiilka reer Nuur iyo Samaroon iyo Gadabuursi iyo Soomaali oo dhanba waxaan leenahay halkuu ka baxay wax ka khayr badan Allah inoogu bedelo marka labaad waxaan leenahay aaska maanta aanu aasaynaa Khadar macnaheedu maaha inaanu heshiis la qaadanay xukuumadda gaara maaha ka laakiin waajibkiina saarnaa ee ahaa oo nagu lahaa maaragtaa waxa weeyaan Khadar xaqul muslim cala muslim ayaanu maanta gudanaynaa sidaasaanu maanta nagu kaliftay inaanu aasno oo waajib bay nagu tahay aaskiisu marka waxaan hadalkayga ka dhigayaa laba qodob qodobka koowaad waxaan kula hadlayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliland iyo ummadda muslimiinta iyo ehelka iyo qaraabada dhammaantoodba waan la hadlayaa waxaan leeyahay Khadar way naga wada baxay dareenkiisa iyo dhibkiisuna wayna wada hayaa waxaanan ka tiiraanyeysanahay inuu cadaalad ilaa maanta oo 15 tahay maalintii la dilay maanta ku tahay aanay wali suuroobin in la qisaaso marka gacan ku dhiiglihii dilay baaqa labaad waxaan u dirayaa xukuumadda waxaan leeyahay khaasatan garsoorkaan u dirayaa maxkamaddu waxaan leeyahay darajadii koobaadna waad xukunteen dilka tii labaadna waad xukunteen warasadii waad u yeedheen oo waad ka buuxiseen waxaanay qoreen in la qisaaso waxaan idinka codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan fulisaan waliba waxaan jecel lahay halkaa uu maaragtaa waxa weeyaan dilku ka dhacay in lagu fuliyo oo ummadda aad samirsiisaan sidaasaanu maxkamadda ka codsanaynaa xukuumaddana waxaan leenahay inaad ku daba joogsataan khaasatan madaxweynuhu inuu degdeg u saxeexo oo uu hawshaa fuliyo oo uu maaragtaa ummadda dejiyo oo uu maaragtaa waxa weeyaan sabirsiiyo ayaanu ka codsanaynaa hadday taasi dhici weydo wixii ka yimaada mas'uuliyaddeeda xukuumadda iyo maxkamadda sare ee militariga qaadi doona inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun naf kasta dil bay ku qoran tahay oo adduunyada joogta ilaahay baa ugu talagalay ninna saacadiisa dhaafi maayo Allahu naxariista marfuuca ilaahay jannadii buu ilaahay geeyni maanta oo gacan gardarina way dishay intaasi oo islaamina maanta janaasadiisa ku tukatay alxamdulillah ilaahigay waarisadina samiriye iibaan Allah siiyo waxaan leenahay wixii kale way soo wada dhamaadeen maxkamadihii ninka way soo xukumeen waxa weeyi fulintii baa hadhay fulintuna waxay ku xidhan tahay madaxweynaha isagay u gaar tahay waxa weeyaan waxaan leenahay madaxweyne maanta inaad Soomaaliland badbaadisaa laga rabaa inta meeladay ka gubanaysa waad ogtahay ee maanta dumarkii iyo carruurtii ay wada sare joogaan maxay noqon waliba u leeyahay adiga maanta waxaan ka rabnaa waa shakhsi ilaahay baa dilayay naftiisa ilaahay baa dilayay ninna abaal looguma qabo waxaan murtidaydu ay taan ku sheegayaa
madax meel ka sarrayso la salaaxa ma jiro odaygii ugu weynaa baan ahay reer nuur waxaan leeyahay madaxweyne ninkaa ilaahay dila yidhi dilkiisa iyo gobolka awdal kala dooro adigu midkii ku roon qaado war miyaanay ahayn khadar allahu naxariisto jannatulfirdowsa allaha geeyo ergada intaa leeg ayaa maanta jinaasadiisii ku tugatee ilaahay rabbigay isagana maanta marti khayr qabta ilaahay ha ka dhigo ilaahay marti khayr qabta ilaahay ha ka yeelo 15 maalmood waxaan sugaynay oo ku dadaalaynay sida u dana Somaliland sida islaamnimada u dana sida maad aragtay kala dilay iyo ka wax dilayba u dana iyaan doonayno 15 meydku loogu yiilay way fuli weyday waa qadar Allah labadii maxkamadood wixii ay fuliyeen fulintii lagu daro labadii maxkamadood waxay xukumeen fulintii in lagu daraan way suuroobi weyday qadar Allah hayna laakiin waxaan leenoo sheegaynaa maanta awshan iyo 10 ay tahay hadday 15 kale lagu gaadho way nagu dheertahay way nagu amri dheertahay yeel ma ka ku samri mayno intii ka badan u samri mayno waxa kaloon tacsiideynaya dhammaan beesha reer nuur iyo beesha samaroon dhammaantoodba waxa weeyaan sidii fiicnayd ay uga tiiraanyoodeen ee ay uga gilgiseen ee ay uga xumaadeen ee ay qoyskaasi ula naxeen waxa weeyaan way ku mahadsan yihiin aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waana waajib saaraa weeyi waa ku ay iska lahaayeen weeyi intaa kadib waxaan leeyahay madaxweynaha muuse biixi baan anugu la hadlayaa waxaan leeyahay madaxweyne arrintaa maanta halkaa taalla annagu ninkaa wax shuruuda iyo wax aanu ka wada hadalnay iyo cid waxna tidhi ma jirto waan aasnay haddii aanu reer nuur nahay haddii aanu samareen nahay waannu aasannay waxaan sugannaa ninkaa dilka ahaa qisaastiisii baan sugannaa hadday dhici weydo balaayada meeshaa ka timaadda xumaanta meeshaa ka timaadda waxa mas-uul ka noqon doona muuse biixi ilaahi raajicuun kulli nafsin daa'iqatulmowt mowdkiisii iyaa yimiday maanta maalintii uu dhaafayey ma ahayn xaqii baa isaga ku yimiday innagana waxaa inagu timiday geeri foolxun geeridaa foosha xun la inagu timiday waxaannu ka tacsiyeynaynaa kow qoyskii uu inankaasi ka dhashay qoyska reer nuur weyne iyo gadabuursi dhammaantii iyo somalilan oo dhan baannu ka tacsiyeynaynaa allaha samir iyo iibaan allaha inaga siiyo maxabbadiisiina ilaahay meel fiican oo kale abaalkale ha inoogu gudo waxa maanta yaanay u qaadanin xukuumadda iyo dadka ay maaragtay hoos taallo warqaddii ninkaa loo saxeexay ee aannu saxeexnay ee dilka ahayd ee maxkamadu ku xukumeen yaanay u qaadanin in ninkii la aasay dabadeedna uu noqonayo sida kuwa kale ku sii jira meesha ma noqonayo wax weyn baa nagu kacsan haddaannu gobolka awdal nahay iyo haddaannu gadabuursi nahay iyo haddaannu nahay beesha reer nuur iyo haddaannu nahay warisadiiba waannu aad iyo aad baannu u kacsannahay waxaananu doonaynaa in la noo fuliyo xukunkaa ku dhacay gacanku dhiiglaha sida gacanta gardaran u dilay walaalkayo haddii ay taasi dhici weydo wixii ka dhaca annaga hadalka yagu wuxuu ku kooban yahay haddii ay fuli weydo xukuumaddu ay fuli weydo oo muuse biixi saxeexi waayo in la dilo ninkaa uu dadeji waayo weliba annaga hadalka yagu wuxuu ku kooban yahay wixii ka yimaada dawladda ka mas-uula wixii ka yimaada muuse ka mas-uula marka labaad waxaan leeyahay beelaha samaroon dhammaan gadabuursi iyo reer nuurba ilaahay samir iyo iibaan haynaga siiyo walaalkeen anigu hadalka badan maayo muuse biixi madaxweynaha waxaan leeyahay saxeexaagii baa hadhay sharciga in la mariyo ninkaasaan diyaar u nahay waxaan leeyahay muuse balaayo daaman la qabtay ilaa daba la qabta ma laha balaayada somaliland maanta ka aaloosanina way fara badan tahay balaayo kale ha ku kordhin baan leeyahay
ninkaa ilaahay abuuray baa yidhi sharciga ha la mariyo walaalkii buu dilay hadduu walaalkii dilayna in loo qisaaso sharcigu dhigayaa haddaan cuqaashii weliba warisada nahay weliba xigtadii nahay waxaan leenahay ninkaa hala noo raaciyo haddii la noo raacin waayena waxaan la filayn baa dhici doona annagu saddex intaas baan leenahay allah ha u naxariisto go'aan qadhaadh buu ahaa qaadashada aaska marxuumku balse waxaan ku qaadannay taladii tolweynaha reer nuur ayaabaan ku qaadannay inaan maanta meydkayga aasanno waxaan halkan ka sheegayaa maanta inaannu ilaawi doonin khadar xabeeb ilaa uu helo cadaalad ilaa uu helo inaannu dhammaantayo aananu saa ku ilaawi doonin waxaan leeyahay dad baa lahaa meelaha reer nuur mag bay qaateen warkaasi waxba kama jiraan weeyi reer nuur waa uu ka siman yahay tan dhammaantiiba reerku waxaan madaxweynaha gaar ugu sheegayaa haddii ay dawladdu isku daydo inay dhagaha ka furaysato baaqa dhalinyarta iyo uqaasha gobolka awdal wixii ka dhaca iyadaa ka mas-uula oo madaxa u ridan doonta ugu dambayn waxaan codsanayaa dhammaanba dhallinyartii lagu xidhay marxuumka dartii in la sii daayo oo xadhigga laga sii daayo ayaan codsanayaa